muuqaalkeenan idinku soo gudbin doonaa dad maalqabeen ahaa oo marun la waayay siday u joogeen ee sii daawo barnaamijka oo dhammaystiran. Don Luis wuxuu ahaa nin tabcaday xoolo aad u fara badan, wuxuuna ahaa mid mar walba jeebka ku qaata lacag aad u tiro badan. Wuxuu ka kasbaday ninkani lacagtan ganacsiga dhulalka iyo baabuurta xamuulka iyo weliba mashruucyo kale oo dhowra. Waxay u bedeleen isaga iyo xaaskiisii lagu magacaabayay Kalor dhul gaadhaya 500 oo mitir square, beer lagu xanaaneeyo oo lagu daryeelo xayawaanada duurjoogta oo ku taalo wadada Asia Street. waana meel ay ku nool yihiin wax ka badan 200 oo bisadaha xajmiga weyn ah micnaha shabeelada. bishii August sanadkii 1997 Kolar oo ahayd xaaskii Luis ayaa waxay booliska u soo sheegtay inuu maqan yahay ninkeedii Luis. maalintii ku xigtayna waxa laga helay gaadhigiisii madaarka dhexdiisa isagoo weli furayaashii gudaha kaga jiraan. waxa la cadeeyay in Luis uu sheegay xaaskiisa inuu furi doono 2 bilood ka hor inta aan la waayin. intaa kadib ayaduna ugu hanjabtay inay ku dili doonto rasaas. waxay aaminsan yihiin saddexda gabdhood ee uu dhalay Luis in Kolor ay tahay qofka ka dambeeyay in la waayo aabahood. waxayna u sheegeen booliska in la baadho hilibka la siiyay shabeelada ku jira beerta, lagana baadho inuu hilibkaasi yahay kii aabahood. xaaskii Luis waxay ku sifaysay in hadalkani uu yahay mid fool xun, waxayna sheegtay in kaliya uu shabeelku cuno hilibka ee aanu cunin dadka. waxayna aaminsan tahay iyadu in ninkeedii Luis uu u baxsaday waddanka Costa Rica, laakiin lama helin Luis ilaa maanta.